السلام عليكم أصحابتا كسو دبادة فيسبوك بيجك داونيسين waa عباسي فايز فاميلي haddii aad youtube naga daawanaysid waa عباسي فايز فاميلي haddii aad tiktok naga daawanaysid waa isla عباسي فايز فاميلي isla haddii aad instagram naga daawanaysid waa عباسي فايز فاميلي marka waa kaasa maanta waxaan idin wadaa barnaamij ah yani barnaamijkaas aawado adiga xataa haddii daawanayo oo ka hadla barnaamijkaas idin wada wax kale ma ahan waxaa waaye mahadcelintaasoo ka imaaday qulubta si waxaanu yani asxaab badan soo waceen dadka caan kamid ah dadka caanka ah dad anaga familigeena kamid ah dad haddana daawanayo anaga nagu xiran marka oona dhaheen yani niyada khayr u sheeg saas wax walba yani iyadoo waqtigaas la taagan yahay marmarka qaar sawirka xitaa oo ka tagi kara bini aadan hataa ileen ya marka uu soo xasuusinayo inuu ilaahay jiro inuu ilaahay yani dad soo garab istaagayo inuu ilaahay jiro inuu ilaahay daraad ku sii maantana ku siin karo marka dadkaas ina u mahadcelin maanta soo fadhiistay waxaan yani sida quruxda badan ay soo tacyiisiyeen waa idinka qaba walaalayahtiin yani fanis kaliya ima tihiin familigeena waa kamid tihiin waa kaasa soo dhawaada maanta waxaa garabkayga fadhiyo walaalkay Yusuf Pakistan ninkan haddii aadan aqoon hadda baro hadaa taqaanid waa kaasa aad iyo aad waa maasantihiin dhammaan asxaabta haddii yihiin dadka ku xiran page-ka haddii yihiin dadka saameynta ku leh bulshada dhexdeeda dhammaan dhambaalada tacsiyada ah ee ay soo gaarsiinayaan kulley qof kasta waa dareemi karaa qofku markaa inuu xaalad xanuun uu dareemayo maadaama haddana lamaanihii da-da yaraa faa-iiso oo hadda xoogaa waa fiican tahay alxamdulilah laakiin weli xoogaa yar xanuunsan oo maqan waa dareemi kartaa qof umula ha iyo cabaas marka in mataqaanaa lamaanihii da-da yaraa muddo kusoo taamayay in ay markaasi ubad helaan ubadkii ilaahay uu oofsaday saqiir aqir allah uga dhigo idinkuna aad iyo aad waxaad ugu mahadsantihiin sida usoo garab istaagteen maanta wuxuu dareemay in uu leeyahay dad u damqanayo ka fakarayo ku xiran oo wax walba oo dhib iyo dheef mid kasta oo soo wajahdaa la qaybsanayo runtii waana wax aan la heli karin maanta waxa ugu wanaagsan horta ee la beerta waa dad maanta haddii aad heshid qofku hadduu helo dad garab taagan xilli kasta oo dhib iyo dheefba la qaybsadaa runtii maskaxiyan ba xataa maskaxdiisu way degaysaa caadi buu noqonaa hadda waa kan cabaaskii dhiiranan ayaa markaasi ay gelisay inaad idinku garab taagan tihiin dhib kastaa la qaybsateen dhambaaladii tacsida usoo dirteen dadka saameynta kule bulshada dhexdeeda ee magaca leh caanka ah dadka aan caanka ahayn dhammaan qof kasta oo maalin muuqaalkooda daawaday faa-iise iyo cabaas waxa uu kasoo tacsiinayay arrintan marka dhammaantiinba in laydiin mahadceliyo ayaan halkan usoo fadhiisanay cabaas oo leh waa soo garab fadhiistay anina maadaama maanta aan u imid oo maalmahanba waa isla joognay laakiin maanta aan kusoo gaaray isagoo muuqaalkan markaasi duubayo waxaan ku leenahay samir iyo imaan saqiirka kii idin shafeeco qaado maalinta qiyaama allah ka dhigo saqiir aakhir insha allah wallahi maasha allah walaalka lagu sheegayo yani xilliga loo baahan yahay waxaa markaa dhibaataysan tahay walaalka lagu sheegayo waxaa waaye kan mar walba dhibaato ku jirto kusoo xasuusiya ilaahi subxaanahu watacaala inuu jiro marka ma awoodo ma aanay hadda yani in qof walba aanay niyadda ii dhis waqtigaas iyo dhibaatada ii haysatay hadda yani niyadda ii qaboojinayo ma awoodo ma aanay calaa qofka gurigiisa ugu tagi lahaa waa mahadsantaha dhihi lahaa oo dadka oo fara badan maadaama magacyadii aan soo qaadan dhaqaalo qurux badan fariimo whatsappka igu soo direen instagramka qaraa kala soo hadlayo dada facebook page kala soo hadlayo dada yani youtube comments kala soo hadlayo marka mid ina ugu jawaab way noqon wayse marka yani way noqon lahayd laakiin yani ma awoodi karno waa dareemi kartiin in anagoo hal qof ah faa-is iska xanuunsan tahay insha allah gurur isbitaalka laga soo bixin doono iyo anigoo keligii ah in halahaas oo isku akhriyo yani way ii suurtageli waase balse waxaa ii fududaatay in hal muuqaal ah idin soo wada duubo oo idinkoo dhan oo toos idin soo wada gaaro marka jazaaka allah kulligiin waa idin mahad celinaa inta ii damqatay inta noo damqatay inta noo soo duceysay iyo inta tacsiyadana laga qaybsatay waxaa idin leeyahay jazaaka allah marka waa kaa aad iyo aad idinku waa ku mahadsantihiin sidaa usoo garab istaagteen na waa rajeynaya hadda in mataqaa niyadiisu ay degan tahay haddii wixii ka dambeeyana markaasi maaweeladii wixii aa uga barateen uu markaasi idiin soo gudbin doono haddii rabbi uu qadaro mar walba anaga cabaaskii faa-iisadii lamaanihii aad dareyn jirteen daawashadooda unba ahaynaa wax isbedel ma dhacay aad iyo aad weli waa daayar yihiin lamaanahan
weli waqti u haystaan caruur ilaahay ku arsaaqo markastana waa u duceynaynaa idinkuna usoo duceeya insha allah wixii talo iyo markaas tusaale ah oo aad soo gudbiseen wixii dhambaal tacsiya dhammaantood waa akhrinay waana idinkaga mahadcelinaa muuqaalkan waxaan ugu fadhin waxay tahay inaan idinkaga mahadcelino dhambaaladii aad soo gaarsiiseen walaalkii Cabaas iyo walaashay Faiza oo iyadoo naga xanuunsan noogu soo duceeya hadda in ilaahay caafiyo fiicanta alxamdulillah ma sha Allah hadda inuu ilaahay caafimaadku ziyaadiyo mar walba caafimaadku waa muhiim si idin hortimaado haddii caafimaad qabtid u baahan tahay caafimaadka aad iyo aad wax la dhargay ma waxa la caafimaadku waa shay qaali wax kaliya muhiimka u ah qofka waa inuu caafimaad qabo maanta qofka xanuunsan sariirta saaran dareemi karo ahmiyadda iyo muhiimadda caafimaadku uu leeyahay sidaas la mid ah qofka maanta gaajaysan wuxuu dareemaa baahida qofka cuntada waxa markaas ka maqan qofka haysta marka waa dareemi kartaa caafimaadku shay qaali waayo muhiim ah waayo markastaana in la isugu duceeyo ilaahay caafimaadka ku siiyo cimri dheer iyo cibaado suuban waa la wallahi ani hadda dadka qaar dhambaalada ii soo diray oo xogaa fariimaha khurubada ii soo diray waxa kamid ah qof anaga yani inuu nasabr siiyo yani faaiisi u dhiibi dhahay isbitaalka faaiisi markaas xitaa yani waxa dhahay faaiisi baa isbitaal ku jirta insha Allah markii caafimaad amal xogaa iyadana ma awoodin in telefoon ay ku hadasho si fiican marka gabar Soomaaliyeed waa muslimada markaas waxay dhahdeen abu horta ani cunuga lagu qalay dhahdeen si fiican horta ani hal gabar ay joogtay dhahdeen cunugna hadda yani ani faaiis isku bila ahayn dhahdeen marka cunuga lagu qalay dhahdeen cunuga markii lagu qalay markii cunuga lagu qalay kaliya dhahdeen cunugiisa xogaa qaliinkii minki miya ay qarxay dhahdeen يعني منك هتمر قرحنه يعني إلهي كسكو دل المسوجيس مرك ورا عط أو حلالها هاد مرك منك جواك حيد المسوجيس مرك أبو وحد هذا أنا أنت سبلي ده أو هذا أنا وده يرى زدت توصل مجارين هذا أنا زدت توصل مجارين أو لا ده المسوجيس أدون كان إف يعني أقرب أكاس هذا يا الصبر سنة هذا مرك أبو وحافظ وشيكتا إن إذا صبرته ويلي يرتاحي أنه يرتاحي وقت يعني إذا وقت إذا المجارين وإن شاء الله إله هذه سينا مرة هذا إذا أنا ود خبط أنا ود خبطت إلهي إن شاء الله إذا كبري أجو والله أمريكا سنيدي سافي نقطي فإذا أرنت ولو ذاقي والله إذا ما شاء الله في عوني وقدر أنتي وضدك قار يعني فريمو ذا كوس ودراي يعني هذا اللي ما تضمن أنت كايستو اللي ما تكبر كل بلاد حسيتها مركز سيدي أدرين وحاسد هذا إله كجعل هذه مركز قف كم الناس حاسيتها كورنا أزلها مركز إلهي سبحانه وتعالى وحول بو أبو دا يعني الحمد لله مر البو أنا هدي وحقير قبل وحقير أهل أنا الحمد لله هدي دواتنا نقول عنه الحمد لله صوتها إلهي مر البو يحسسنا وإن حسسنا هو ده مركز أصحابتي غالية هذيك كانوا قاعدين مهد علينا جزاك الله أجري حسنات الله هذيك السيالة نيجي نودستين isbitaalka Soomaali Specialist Hospital wuxuu fulinayaa qaliimo lacag la'aan ah oo kala ah qaliimada haweenka sida toosinta minka, burada minka, burobiyoodka. Waxa kale oo uu fulinayaa qaliimada guud sida qaliinka xameetida, baabasiirka, eernada. Dhammaan qaliimadaas waxaa lagu fulin doonaa hab laser ah iyada oo la jeexin jirkaaga. Wixii faahfaahin intaas dheeriya kala xiriir Eberli hal 7 69 99 29